تحصوها. وقال عليه الصلاة والسلام: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. marka waxaynu ku dhaqannahay dal iyo dibad miyi magaalo meelaynu joognaba waa ilaahay nicmadiisa. sidaa awgeed waxaa ina ku waajiba mar walba in qalbigeenna iyo carabkeenna aanay ka bixin mahadnaqa ilaahay. alxamdu lilaah ereygaas inuu carabkeenna ku bato way fiican tahay. ilaahay wuxuu ku ammaanay nebiyullaahi nuux: innahu kaana cabdan shakuura. wuxuu ahaa addoon mahadnaq badan baa ilaahay yidhi. marka in carabkeenna iyo lisaankeenna iyo qalbigeenna hadiya gooraale mahadnaqa ilaahay inaynu badinno alxamdu lilaah alxamdu lilaah, oo aynan isku hadlayn aqoonteenna, awooddeenna, maalkeenna, caafimaadkeenna iyo nolosheenna. inaynan isku hadlayn ee qofku ogaado ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ku dhaqdhaqaaqayo ku nool yahay nicmadiisa oo aanu isku filnayn. maxaad u malaynaysaa meesha nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam uu galabtii iyo aroortii odhan jiray: yaa xayu yaa qayuum biraxmatika astagiif aslix lii sha'nii kullah walaa takilnii ilaa nafsii tarfata cayn. ilaahay wuu tawasulayaa biasmaahi alxusna. markaasuu wuxuu leeyahay raxmaddaada baan ilaahu ku weydiisanayaa. iskuma filni, kaama maarmi karo. isha intii la ysku qabto hal mar ilbiriqsi wax lagu cabiro waxa ugu yar weeyaan. kaa maarmi kari maayo ilaahayo, marna kaama maarmi karo. marka inaynaan walaalayaal isku hadlayn waxa aynu maxaanku idhaahdaa ilaahay ina siiyey oo aynu haysanno, laakiin ilaahay isku hadlayno. waxaan waa iska kaalmo, laakiin axadkii ku siiyey marka aad garatid oo qalbigaaga uu ku weynaado waxaa ka dhalanaya ilaahay inaad jeclaato. caafimaadkan xagguu ka yimi, maalkan xagguu ka yimi, aqoontani xaggay ka timi, waxaan oo dhan bal xagguu ka yimi. mid kasta dib u raac: min allah min allah min allah min allah. waxay taasi keenaysaa ilaahay inaad jeclaato, ilaahay inaad jeclaato. maanta haddii qof 1,000 shilin ku siiyo, berina uu 1,000 shilin ku siiyo, markaa is aragtaan buu 1,000 shilin ku siiyo. haddii loo dadka nairobi yaa ugu jeceshay aw jaamac baan ugu jecelahay, oo maxaa ku jeclaatay? war caadiba maaha ninkaas. indhaha haddaad is saartaan lacag buu kuu dhiibayaa. dee waxaa ku jeclaatay wax uu ku siinaya soo maa. fakayfa axadka leylan wa nahaaran nicmadiisu kugu socoto maxaad u malaynaysaa? leylan wa nahaaran. wax kale iska daa, bal neefta aasanka ka qaadanayso oksijiinta bilaash baa ku qaadanaysaa. dadku markay bukoodaan dhakhtarrada la dhigo oksijiin u baahdaan waa garanaysaa sida xaaladdu u adkaanayso. waa dhoweyd oday baa kaadidu qabatay, dabeetana dhakhtar baa la dhigay. odaygii waxaa la yidhi borstayt baa ku haya. qanjidhkan qofku markuu 50 ba dhaafo wuu dareemaa inta badan qanjidhkaasi. dabeetana waxaa la yidhi waa in qanjidhka lagaa saaraa. lacag baa la bixiyey, qanjidhkii baa laga saaray. maalintii dambe dhakhtarrada waydinka arkay oo aroortii markay cusbitalka soo galaan dadka jiifa bukaanka ayuu dhakhtarku kormeeraa. qof waliba uu eegaa xaalkiisa, xali sidee ahaa caynkan. kadib uu wuxuu fadhiistaa qolkii uu fadhiisan jiray. odaygiibuu marka uu qalay buu ku soo beegmay. markaasuu iska warran buu ku yidhi sidee tahay? odaygii markaasuu ilmaa indhihiisa ka soo daadatay, waa ooyey. dhakhtarkii wuxuu adeer maxaa la ooyeysaa adoo tacbaansan oo kaar badani ku hayo ayaa lagu keenay, waa lagu dadaalay, operation fiican baa ilaahay naga ka dhigayo, waa lagu guulaystay, maasha allah si wacan baad imanka kaadidii kaaga imanaysaa. leesh maxaad u ooyeysaa? maqaalad cajiib ah buu ku jawaabay odayga. wuxuu yidhi maalintaan dhashay oo dunida imi ilaa maalintii dhakhtarkan la i keenay intaa waa kaadinaya, bilaash baana ku kaadinaya.
wax lacaga ilaahay igama qaadin hal maalin oo aan idiin baahday oo kaadidii i qabatay baad tidhaahdeen intaas oo lacaga keena hal maalin baa idiin baahdo kaadidii i qabatay dhowr iyo 70 sano baan caadi bilaash lacag la'aan ku kaadinayay maalintaa ay kaadidu i qabatay baad tidhaahdeen intaas oo lacaga keena meeshu wax ka eegaysa ma aragtay waxa aynu haysanno ilaahay ina siiyey waa xusuusin baa iga tahay naftaydana waa u sheegayaa idinkana waa idin xusuusinaya nicmadaas ilaahay uu ina siiyey fara badan qof waliba waxaad haysato cid badan oo aan haysan baa jirta marka inaan ilaahay u mahadnaqno waa is xusuusinaynaa intaa bacdigeed mawduuca waxaynu u doorannay dhacdo weyn oo dhacday taariikhda islaamka oo dhacdadii u horreysay islaamka ahayd middaa mid la mid oo dhacda xilligii xabiibku noolaa calayhi salaatu wassalaam dhacdadaasi nin saxaabiyay ka dhacday waxaynu markaa qiimaynaynaa intaa innagu waa dembaabaynaa qofku waa dembaabi karaa isagoo sheekha isagoo mucallina isagoo mas-uula isagoo dhallinyaro ah isagoo waayeela waa dembaabaynaa habeen iyo maalin oo naf iyo shaytaan baa inagu xidhiidha wakhtigan iminka la joogana dunuubtu waa iska badanta oo macaasidu waa badanta oo wixii ilaahay lagaga fogaanaya baa kolba soo kordhaya oo badanaya waa duni waalan oo suwixii waageedu bariyaba wax kaa cajabiyo unbaad arki sidaa awgeed in dunuubta qofku marka ay ka dhacdo inuu soo noqdo dunuubtaasi ha noqoto mid waaweyn ama ha noqoto mid yaryar dembiyada ilaahay bani aadamka uu ka galo 3 dembi baa ugu weyn sida nusuusta shariicadu sheegtay dembiga koowaad ee ugu weyn waa maxay yaa ka jawaabay shirkiga ugu weyn afsax allahu lisaanak maxaa ku xiga dilka naf xaq darro lagu dilo maxaa ku xiga zinadaa ku xigta في سورة الفرقان بقى إلهي كل شيء والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق محاكو حقه ولا يزنون وما يفعل ذلك يلقى أثاما سدح ذا الدنبيء إلهي لقال هو وين وقال لمو يدي الحق دراء يزنو بقوي marka dambigan caaw ka sheekaynayno waa dambi nin guursaday ka dhacay nin xaas ah ee dambigan ka dhacay oo zina ah shariicaduna meel adag bay dhigtay tusaale baan saxaabigan u soo qaadanay sida intuu dambi ugu dhacay ilaahay intuu ugu soo noqday iyo heerka abaalkiisa uu gaaray ee rasuulku ka sheekay sallallahu alayhi wasallam ninkaasi waa maa'iz ninka la yiraahdo saxaabiga ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah maa'iz waxa la yiraahdaa reer bani tamiimna waa lagu sheegaa inuu ahaa culimada kutubta taariikhda qorta reer aslamina waa lagu sheegaa aslami baase loo badan yahay inuu ahaa rasuulka sallallahu alayhi wasallam reerkooda warqad buu u qoray oo ugu baaqayo inay islaamnimada iyo diinta soo galaan ilaahayna sabab uga dhigay oo way soo muslimiin wuxuu ahaa ninkii ugu horeeyay ee dhagax lagu dilo shariicada islaamka gudaheeda intuu guur xalaala soo maray zinaystay dabadeedna ayuu ahaa maa'iz ibn Malik sanadka dhacdadaasi dhacday tolo waa goorma taariikhyahanadu waqti go'an oo dabdi ah aad uma sheegaan laakiin waxa la sheegaa waxa jirtay qof dumar oo ka dambaysay oo la oran jiray imra'atul ghamidiyya nusuustu ku sheegtay gabadhaas waxa la yiraahdaa sanadkii 9aad ama sanadkii 9aad aakhirkiisii ama wax yar ka hor ayaa gabadha la rajmiyay iyaduna waa ka horeysay waa gabadhii rasuulka u timi sallallahu alayhi wa sallam iyadoo uur leh salawaatullaahi wa salaamu alayhi oo ay rasuulka ka codsatay in uu rajmiyo salawaatullaahi wa salaamu alayhi waa ay tiri sidii aad maa'iz u celisay baa doonaysa anna inaad ii celiso oo dabeetana uu yiri balato uurka soo dhig dabeetana ay umushay oo ilmihii ay keentay oo rasuulku bal soo nuuji ilmaha oo dabeetana markuu naaskii jaqayo de laba jir meelaha u yahay ay keentay subaxii dambe jab kimis ah ama jab jabaati ah ay soo qaaday oo ay u dhiibtay rasuulka ilaahay aniga saaka wiiga maarmaayo
waka halkaa ku ciyaarayo jabaatigiisa iska cunayo hadday xadka layga oofiyo maanta ii baahan maayo ee xadka ha layga oofiyo fatahirnii yaa rasuul allah itahir rasuulka ilaahay dabeetana maryihii lagu adkeeyey dhagaxiisaas rajmiga ah loogu sameeyey intaasoo dunuuba inaga ayna ka dhacaysa haddana waqtiga maanta aynu joogno dad badan oo ina ka mid yihi dunuubta ka dhacaysa waxba lama aha waaba waxaa dhacday xajka ayaa la xajiyey cumradii oo la tawaafayo kacbada ayaa niman Soomaaliya wada socda waxay arkeen dadkan eeshiyaanku wadadeen ka qalbi jilicsan oo hin badan inta badan niman eeshiyaan oo kacbadii maradeedii haysto oo aad u ooyayo ilaahay toobad iyo istighfaar weydiisanay nimankii bay isweydiiyeen marka Soomaalida ahaayay wada socdeen ma laba ma saddex nin bay ahaayeen qiyaasta bal nimanka niyahow bal siday u haystaan kacbada maradeeda oo u ooyayaan oo ilaahay dambi dhaaf u weydiisanayaan eeg inaga maxaa ina helay wax dareenaba ma lihiin waa sidee kii la socday baa yidhi war ma dambigay galeen baad ogti adu maxaad gashay yani waxay tusinaysaa xogaa qalbi adeegeenna bay tusinaysaa qalbi adeegeenna inta waa dambaabaynaa qofku inuu ogaado dambigu ilaa saxaabadii waa dhacay heerarkiisa kala duwan ilaa inta dunida la joogana uu dhacaya qof nooc kastoo bulshada ka midu ka dhici karaa laakiin ha dhimanin oo godka ha gelin adoo dambiile ah in alla u toobad keenta kullu ibni aadam khataa wa khayru lkhataa'iina attawaabuun ina aadan oo dhan wuu gafaya laakiin inta gaftaa waxa ugu khayr badan kuwa soo noqoshada badan marka gabadhaasay ahayd ninkan saxaabiga maacis ayaan bal qisadiisa rabaa inaan yara dhex galo si aynu insha allahu tacaala si fiican aad u dareenno iyo wixii bal aynu odhan karayno nebigoo masaajidka dhex fadhiya calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisii bartankooda fadhiya ayuu u soo galay ninkan saxaabiga ah dabeetana saxaabadu ay rasuulka dee dhegaysanayaanoo uu la hadlaayo xagga muuqaalka nin gaaban buu ahaa maacis markay taariikhda kutubta siirada ka warramayso wuxuu ahaa rajulun qasiir nin gaaban buu ahaa wuu u soo galay oo aan itaal weyneyn nin lixaad le ma ahayn nin yaroo gaaban oo xagga itaalka nisyar buu ahaa wuu u soo galay markuu u soo galay rasuulka u yimi salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wuu is hortaagay afar jeer buu rasuulku kala duwan intuu u yimi rasuulka ilaahayow zanaytu fatahirnii waa zinaystaye idaahiri oo inadiifi yacni dembi weyn weeye ashrafu lkhalqi hortiisa laga qiranaya salawaatu ullahi wasalaamu calayh oo masaajid dhexdii uu taagan yahay yaa rasuula allahi qad dalamtu nafsii wa zanaytu fatahirnii naftayda waa dulmiyey waa zinaystay iطaahir rasuulka ilaahay zinadu waa dembi weyn oo cadiim ah waa jariimo weyn oo dunuubta insaanku galo cuquubaad waaweyn oo abaara leh oo cudurra leh oo balaayo leh baa ka dhaca wax badanoo insaanku sahashanayo nebigana salawaatu ullahi wasalaamu calayh ummaddiisa aad buu uga digay waxaa ka mid ah axaadiida saxiixa ah yaa ummata muxamed yaa ummata muxamed wallaahi ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته حديث بخاري مسلم صوصارين ومدي النبي محمدي إلهي بان قدارتي متشيرو أحد كغقي ربضا إلهي سبحانه وتعالى سيدو أغقي روضو إن أدون كيسو زينيستو أما أدون تيسو زينيستو سيدو إلهي أغقي روضو سنة بالعادي ما هب النبي عليه صلوات الله عليه إنما عادي ما سوق قيرون أظن من رجوا كم من المسلمين تا أما قفضوا مرة مسلمات كم يدو زنيسته إلى هاي سدوا قيرون وحلم إذا مجرى النبي عليه الصلاة والسلام رسولك يسقوا ساق قد جاي أي هذا ننكاس أرنتها سكر عادي ولا وزنيستي طاهر رسولك إلهي صلوات الله وسلام عليه يعني هو حويا زند ودم بأذك الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة
والزانيات لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين وضد يقل إسرائيل سانيق سانيق هقورسدو سانيدنا سانيدها هقورسدو ودنبي وين oo sharaa'icdii ilaahay soo dejiyay oo dhan xaraamnimada zinadu ay xaraam tahay ay isku waafaqeen hal sharci iyo hal kitaab ilaahay soo dejiyay kutubtii iyo rusushii uu soo diray laguma arag oo duc uga kala baydhay way isku waafaqeen sahih al-bukhari waxa ku sugan qisa yaab leh ayaa ku sugan oo Amar ibn Maymun uu warinayo wuxuu leeyahay ra'aytu fil jahiliyati qirdatan والقصة أي وحان أركي حتى حيوان كسي زينة ونعبهين وحان أركي شاهليدي وحل كان رسولكو صابحين عليه الصلاة والسلام وحان أركي بولي عمر بن ميمون وحان أركي دانيرات كدديك دانيرات بان أركي اجتمع عليها قردة دانيرات بدن اسقوي مادين قد زنت وزنيست دانيرك قفها يقانا بيرها iyo damiigi waa lagu garanayaa waa xayawaanka ugu qiirada badan xagga wuxuu kamid yahay tan nolosha la wadaagta wax yar haday ka maqnaato oo ama geed ama kayn ama meel ay xagga ka soo marto marka ugu horeysaba wuxuu shayga ugu horeeyo uu sameeyo uu ursanaya xubinka taranku ka ursanaya xagganu kala wareegaya marka aad buu ilaaliyaa daanyarad baan arkay buu yiri daanyara isugu yimaadeen farajamuha oo dhagax ay ku dilayaan ayaan arkay markaas wuxuu leeyahay ninkan saxaabiga ah farajamtuha ma'ahum ana wala rajmiyay markaan fahmay inay daanyar kale u dhuumatay waa u raaciyay buu aniguna ilaa nafta lagaga jaray waa garad Soomaa waxay tusinaysaa mas'aladan xitaa xayawaanka agtooda sida ay ku tahay bay tusinaysaa waa zinadu waa ceeb wa an aadux adduunkana waa ceeb iyo dulli آخرنا وعذاب وحقرنا يسن حديث البخاري ومسلم سمرة بن جندب رضي الله عنه وأرضاه رسولك مركي لقوريسي أمل ديلميي واتو رسولك صلى الله عليه وسلم إنه أتاني الليلة آتيان هبين كي حليها لبما لك بائيهمي وإنهما ابتعثاني ويكحيين لبدي ملك وإنهما قال لي انطلق وحي يراهدين صعو وإني انطلقت أنيقو نوان صعدي معهما أنيقو لجرا فأتينا على مثل التنور وحانو صعونا وحان نمي تنار باني بالك موفضل لقدو بي رودي ده تنار دوشي باني سسو تاغني فإذا فيه لغط وأصوات ستنار كقديه سا وحاكات بحي بوق يعض يقيلو أيا كسعط فاطلعنا فيه وقران سنيو ساسانو اكني فاذا فيه رجال ونساء عرات مسا وحا كبوخا دخديسا رج يا دمر قاقاون با ميشن كجرا واذا هم ياتيهم لهب من اسفل منهم حق هوسه هلع يا ضب با كغا سو كعيا markaas dabka iyo holacaasi say uga cararayaan isna uu dabada uga jiro bay afka ku soo dhawaanayaan dinaarka afkiisi bay ku soo dhawaanayaan faida ataahum dhalika allahab dawdaw marka ay dabkaasi uu ku yimaado waa qaylinayaan abaad iyo qaylo markaasaan faqultu ma haula'i wa ma haykuwan qala fa innahum az-zunatu waz-zawani wa raggi iyo dumarkii dunida kala zinaysan jiray dumarkii raggii zinaysan jiray iyo dumarkii zinaysan jiray waa sidan حارام بي مريها isugu dhigteen Aisha markii aakhira rasuulku ka waramay iyo mowqifka Ilaahay hortiis dadku waxay soo istaagi doonaan iyagoo kabala iyagoo maryala iyagoo aan gudnayn iyagoo caynkana rasuulku sallallahu alayhi wasallam Aisha marka waxay rasuulka Ilaahay dadka inta tira leeg ee banaanka la isugu saaray qaaqaawan miyaanay rag iyo dumarku cawradoodu isu muuqanay Aisha arrinka وكأذجه النبي عليه الصلاة والسلام تو عايش ورنتد درينك قفل بعبير كروي ما أنت محاد مودة يجو درسي تدرك لوكل تاجلاي تاسوا بقى ونان للشجعي وأرين كده أذجه دونينا ما أنت إنه تشوفه يجو رجينا مريحين يدومر كنا مريحين
بهدنا زندي صعوتها ولو كلا تاجلا يهي والله يسكو قرصنايا مركز زندو هيركاسا شريعة جارسيس ماعز رضي الله حديث البخاري ووريه ماعز رضي الله تعالى عنه وتنبي مجلس كأبويم زنيت فطهرني وازني استي طاهري نبي قوائي صلى الله عليه وسلم ويحك ارجع فاستغفر الله وتوب إليه ورهوغي